magaalada Caabudaaq ayaa markii ugu horeysay waxa laga hirgeliyay iskool lagu magac daray abwaankii Soomaaliyeed Allah u naxariistay Cabdulqaadir Xirsi Yamyam kaasi oo lagu magacaabo Yamyam Primary School. iskoolkan ay dhigtaan in ka badan 150 arday oo isugu jira caruur yar yar iyo qaybaha dadka waaweyn ayaa lagu talagalay inay wax ku bartaan isla markaana lagu soo dhiso bayskooda. iskoolka Yamyam Primary School waxa la aasaasay July 2013 waxaana wax ka dhiga macallimiin gaaraya ilaa 4 macallin kuwaas oo aqoontoodu aad u sareyso. iskoolku waxa uu ka kooban yahay 5 fasal. iskoolka Yamyam Primary School waxa hirgeliyay jaaliyada dibadda ka soo jeeda waqooyiga gobolka Galgaduud kuwaas oo isku taxalluujiyay inay ka qayb qaataan kor u qaadista waxbarashada deegaanka waxaana ay sheegeen inay ugu talagaleen inay ka faa'iideystaan dadka deegaanku. waa kan maamulaha iskoolka oo ka warbixinaya bal iskoolkan goorta la aasaasay iyo imika sida ay wax u dhigaan. ama bacdu anigoo ah maamulaha dugsigan hoose dhexe ee Yamyam Primary School waxaan mahadnaqayaa marka hore Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh. marka labaad waxaan mahadnaqayaa jaaliyada soo abaabushay ama soo qabanqaabisay barnaamijkan waxbarasho ee ugu soo deeqday deegaanka. dugsigan Yamyam Primary School waxaa si ramsi ah loo furay albaabada loogu furay July 2013 ayaa si toos ah iskoolka u furmay. dugsiga waxa lagu bilaabay 3 macallin iyo 1 maamule ayaa lagu bilaabay. dugsigan Yamyam Primary School waxa uu ka kooban yahay 5 galaas buu ka kooban yahay ama 5 fasal ayuu ka kooban yahay dugsigu. ardayda dhigata dugsiga hadda waa 120 ilaa 115 ayuu dhaxeeyaan celcelis ahaan. duruusta ka baxda dugsiga waxay qaataan ardaydu dugsiga dhexe hoose waxa lagu qaataa koobaad ilaa afraad waxay ku qaataan syllabuska manhaj Soomaaliya ayay ku qaataan. Soomaali bay ku qaataan. shanaad ilaa toddobaad manhajka waxay ku qaadanayaan luqadda Ingiriiska ayuu ku baxaa. shanaad ilaa sideedaad wuxuu ku baxayaa kuna bixi doona luqadda Ingiriiska ayuu ku baxayaa manhajka dugsiga dhexe. dugsigan Yamyam Primary School bulshadu waxay tiraahdaa cid gaar ah ayaa iska leh bay tiraahdaa laakiin ma aha dad deegaanka ah ayaa soo abaabulay dugsigan Yamyam Primary School laakiin dugsigu waa public cid walba way dhigataa. dhammaan dadka deegaanka iyo degmadan Caabudwaaq dhammaan waa ka wada kooban yihiin ardayda dhigata dugsiga cid gaar ah ma laha. dugsigu waa public cid walba waa u furan yahay waana deeq walaalahooda Soomaaliyeed ay ugu soo deeqeen ummadooda ay ugu soo deeqeen oo ay ku soo caawiyeen ummadooda ay ku soo caawiyeen. walaalahaasina way mahadsan yihiin. waxaana leeyahay nimanka qurbo joogta ah ee deeqna waxbarasho ugu soo deeqay ha ka daalina ha kana caajisina sii wada dadaalkiina. jazaakumullahu khayran. iskoolka oo aynu booqanay xilli ay socotay duruusta la baraya ardayda ayaa qaar ka mid ah macallimiintu waxay sharaxayaan casharada xilligaasi ay bixinayeen. way dhiganayaan kalaaska afraad ee iyagoo soo qaatay isku geyntii kala goyntii iyo isku dhufashadii. haddaynu halkii ka sii wadno isku geyntii waxaynu raadin jirnay 6 marka wax lagu dhufto 6 iyo 30 nasiisa 6 waa 6 kala goog midda la soo deeqaraga halsaas mid hal ku dhufo mid ka jar waxbarno ku qornaa tanka waxaynu adeegsanaa qorta ayaynu u adeegsanaa inaynu wax ku orno ayaynu adeegsanaa. indhaha waxa aynu u adeegsanaa in aynu ku aragno walxaha inagu xeeran. ramsul ula ramsul wadan عندي أنا قال الثمن. maaha mid markaas cid gooni ah ay wax ku barato. waa iskool ay dadka deegaanka u wada dhaxeeya waxaana hadda lagu wadaa in laga sii ballaariyo inta hadda uu yahay.
qaar ka mid ah odayaasha deegaanka iyo qurba joogta hadda deegaanka joogta ayaa si wada jir ah ugu baaqay jaaliyada hadda gacanta ku haysa in cid kasta oo danaynaysa inay ka qayb qaataan waxbarashada deegaanka in halka ay ka sii wadaan iskoolka lagana sii ballaariyay inta hadda uu yahay oo la gaarsiiyo ilaa dugsi sare si ay uga faa'iideystaan bulshada deegaanka. salaanka bacdigeed waxaan sii salaamayaa qurba joogta reer Xirsi oo iskoolkan midka koobaad iyo kan toddobaad asaastay oo ku hawl gashay baan aad u salaamayaa. salaanka bacdigeed in baa wuxuu la yiri maandhow shalataan u diriray maarkiis wiilkiisii maandhow waa intaas oo aad ula sii dhawaato waxa ka muuqda oo aad arkaysaan oo aad dib ka arki doontaan waxaan ka rabnaa qurba joogta annagoo salaamayna waxna la qabanayna inay ka hawlgalaan hawshaan oo sii kordhiyaan oo u ducaynaynaa annagoo culimaa u diin iyo odayaal iyo waxgarad iyo qabiil bale saasaan qurba joogta ka rabnaa. dadka meesha wax ku baranayaan ilaahay khayr kala kulmiyo waxaan u hambaliyaynayaa dhalinyarada wax baranaysa macallimiinta wax baraysa inta ka qayb qaadatay iskuulkan aad bay u mahadsan yihiin ilaahayna ha ka ajar siiyo dhalinyaraduna ha noqoto kuwa wax barta. marka anigu laba arrimood kaliya ayaan rabaa inaan ka hadlo. midda koobaad waxa weeye qolada ku qarash garowday ama ku hawshootay waxaan leeyahay dadaalkiinii waad aragtaan miraha oo dhalay waxaa loo baahan yahay in aad kordhisaan oo lama laabtaan si miraha hadda bilaamay ay u bislaadaan. marka miraha hadda bilaamay la leeyahay ardaygu marka hore waa mira aan maartay bislaan laakiin markuu wax barto waa faa'iidadiisii oo la helayo weeye. marka taas waxaan leeyahay ciddii ku qarash garowday waa in ay himmo u sii yeeshaan oo lagu sii dhiirigeliyo oo ay si fiican uga qayb qaataan oo la dadaalo meel kasta ha joogeen. dalka gudihiisa dad baa ka caawiya dalka dabadiisana dad baa ka caawiya. waxaan idinka codsanaynaa in aad ku dhiiranaataan si iskoolka hadda wuxuu ku jiraa hadda guri kira ah ayuu ku jiraa iskoolku si loo helo meelo kale loogu iibiyo ama dad ku deeqay loogu helo oo iskuulka meel uu iska leeyahay inuu ku shaqeeyo aad bay muhiim u tahay. waxaan codsanayaa in lagu dadaalo in iskuulka la dhiso. heerka uu marayo maanta waxaan aad ugu farxay runtii maadaama iskuulka 4 bilood furan yahay ana yiri waa fasal koowaad ilaa fasalka 7aad oo ardayga 5 markuu gaaro uu ku qaadanayo English wixii ka hooseeyna muqarrarka Soomaaliga ay ku qaadanayaan aad baan u dhow runtii waa farxad waa wax lagu farxo. waxaan horta mahad gaar u soo jeedinayaa macallimiintaas waa heer jaamacadeed ama college of education ka soo baxay graduate bachelor haysta si gaar ah horta ugu mahadnaqayaa. waxa kale oo aan aad ugu faraxsanahay dhalinyarada hadda dhinacaan iga taagan oo qaarkood iga dhaadheeyeen aniga waa qaab adult education ah nimankii la rabay in wax la baro maadaama yaraantoodii hoos aysan nasiib u yeelan inay wax bartaan haatan waa kuwan ayagii baa iskeenoo voluntary waa 20 jiro inay wax bartaan bay diyaar u yihiin. arrinta iyadana iskuulaadka caawda waqtimo waarag waa iskuulka ugu horeeyo qaabkan keenay Yamyam Primary and Elementary School aad baan ugu faraxsanahay. magaca iskuulku wato waa magac aad u culays weyn waa waankii qaranka waa nin Soomaaliyeed waa muwaadin weyn oo la og yahay. waxaan rajaynayaa qurba joogta horta mirihii wixii ay ku tala galeen mirihii hadda waa dhasheen laakiin waxa loo baahan yahay dhul in la helo oo hadda aan ku tala jiro lagana dhigo iskuul weyn oo ilaa 20 fasal 30 fasal meelaha laga sameeyo. waa iskuulkii ugu horeysay ee magaalada laga furo kaasi oo lagu magac daray Allah u naxariistay Abwaan Cabdulqaadir Xirsi Yamyam waxaana hadda wax ku barta arday isugu jirta wiilal iyo gabdho isagoo sidoo kalena iskoolku leeyahay qayb dadka waaweyn waxbarashadooda ah. Bashiir Yuusuf Nadaara waqooyiga gobolka Galgaduud magaalada Cabudwaaq.